بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك داوديال ميل كستا joogtaan halkani waa telefishinka qaranka Soomaaliland saacaduna waxa ay soo gaadhay waqtigii aan idin soo gudbin jirnay war wixina soo gaaray qodobada warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhambaal hambalyo u diray guud ahaan shacabka Soomaaliland munaasabada Ciidul Adha awgeed malaayiin xujeeyo oo isugu tagay buurta Jabalul عرفة سيؤجتان ركن كوجوين واجبات كحجك حكومة وطن كجريج وشيعود كيلسوني ده برلمان كوطن كاسيك الدمركة كوسيكا طيني ماشى كبحضو دقال الدريكة دعدي وطن كاسيك جريج أوجد مدحوينه ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhambaal hambalyo u diray guud ahaan ummadda muslimka gaar ahaan shacabka Soomaaliland munaasabada Ciidul Adha awgeed waxaana madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Ilaahay uga baryay in shacabka Soomaaliland sanadkaasi sanadkiisa uu ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waa habeen barakeysan waa Ciidul Adha waxaan marka hore hambalyo iyo bogaado u dirayaa dhammaan shucuubta islaamka عالمك ملك كل نول هيرودان كارهان شعبك Soomaaliland gudaha dibadba waxaan marka labaad leeyahay hambalyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bixayr bisheeda bashbash iyo barwaaqo ku gaara marka labaad waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay midnimada ilaashadaan nabadgelyada Ilaahay ku manaystay maanta ee ku ciidayaan in sidii caado inoo ahayd si wada jiro ilaashadaan gaar ahaan walaalaha gobolka Sanaag xasaradda dhex martay waxaan ugu baaqayaa in ay nabadda ilaashadaan sidii dhaqankeenu ahayd muddo 20 sano ku soo wada nooleen in bogooda Ilaahay waxaan uga baryaa burcad isku mariyo in wixii dhex yaala ay iska tanaasulaan oo ay dhibaatada in jecelaysanin in si socoto waxaan marka saddexaad aan ummadda reer Soomaaliland ugu ducaynayaa maanta in Ilaahay abaaraha naga saaro oo cirka madar khayr qaba naga siiyo roob caama oo dhamaan geyga Soomaaliyeed degtoodan gaara oo Ilaahay abaaraha ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ka saara gaar ahaan ummadda Soomaaliland waxa Ilaahay uga baryaa in roob caafimaad qaba oo ballaaran oo nimco ah oo aan dib lahayn Ilaahay ina siiyo guud ahaan bari iyo badba waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay dhamaan ummadda reer Soomaaliland hambalyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bixayr ملايين حجية يجونا ما أنت يسوقي من بورتا عرفة سيجوتان ركن كوجوين واجبات كحجك وعن الله المامين حجك يسوقي ما دين كبدن 3 مليون وحاج وكل يمين دافها الدنيا وعن ما أنت يستجر ركن كوجوين واجبات كحجك ورياي عبد الرزاق دعاله وجوبشوكا حجك سوى كسقنا بورتا عرفة يا وحور بحنت النوجا صدر بورتا سي كنا وقت يجلسنا واجبات كحشك دمان مسلمين تايا ساكو حيو تريرين عبورت عرفة يجو كتيرو مالكي أو أتكيد واجبات كحشك بدنيين كاسو سلاها سحمة أي وقت كان بورت عرفة سحمة هاي كاسو أنا كرينها بيراتي واحد بعتها ولنا شايف ترى Soomaaliland كوسكم بورت عرفة كسر دادي بورت عرفة يا ما أنت واحد مدايري وقت يدي هوريكا سمحابيات هاي كاسو يجو عن هاي طريقة أو شو ناكل لو قصدي من عقله كمان مسلمين تايا واحد كوسكم كبيهم بورت عرفة يجو كسر درين دونو مركز صلاة عصر كتكيان عبد الرزاق ساقب عليه تلفزيون قرنك جمهورية Soomaaliland عرفة guud ahaan suuqyada magaalooyinka dalka ayaa si weyn waxa looga dareemay dhaqdhaqaaqa u diyaar garowga Ciidul Adha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si weyn meelaha looga dareemay kamid ah u diyaar garowga ciida wariyahayaga barxad ayaa warbixinta waxa uu nooga soo diray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool suuqyada waaweyn ee magaalada Laascaanood ayaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowga ciida barakeysan ee Ciidul Adha dadweynaha tiro badan ayaa u soo dukaameysi tagay suuqyada Laascaanood kuwaas oo ku iibsanaya maryaha ay ka qayb qaadan lahaayeen ciida barakeysan ee Ciidul Adha
dhinaca kale mar TV-ga qaranka ee gobolka Sool uu booqday seylada ariga ee magaalada Laascaanood ayaa ku arkay dad aad u fara badan kuwaas oo iibsanaya xoolaha ay ku allabaryi lahaayeen. mid ka mid ah dilaalinta seylada Laascaanood ayaa nooga warbixiyay qaabka wax looga iibsanayo seylada. waxaanu idin sheegaynaa qiimaha ariga raqamka koowaad inuu yahay 3 milyan kalabaadna uu yahay 2 milyan iyo 600 ka saddex. ciidan ayaa ciid mid si weyn looga wada ciiday caalamka oo idil waana ciida ay banka Carafa taagan yihiin kumanaan muslimiin. waa Barkhad Cumar Axmed, TV-ga qaranka Laascaanood. sidoo kale suuqyada sida weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqa u diyaar garowga ciidda waxa kamid ah suuqa weyn ee magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer. wariyaha iyaga Cabdisataar Sabri oo soo dhaxmaray suuqaasi ayaa warbixinta waxa uu nooga soo diray magaalada Burco. iyadoo maalinta bari ee guud ahaanba caalamul islaami looga dabaaldegi doono munaasabada Ciidul Adha ayaa gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ka socda diyaar garow xoogan oo ku wajahan munaasabada Ciidul Adha. suuqyada ganacsi waa kuwa ugu mashquulka badan xilligan gudaha magaalada Burco, gaar ahaan suuqyada caanka ku ah iibka xaragada qof kasta iyo waliba adeegyada kale ee loo baahdo xilligan oo kale. suuqyada dharka, kuwa kabaha lagu iibiyo ee magaalada Burco ayaa iyaguna mashquulkoodu yahay mid aan caadi ahayn xilligan, waxaana dareemaysaa dhaqdhaqaaq xoogan oo ay sameynayaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco kuwaas oo ugu diyaar garoobayaan guud ahaanba munaasabadaasi maalinta bari ee Ciidul Adha. carruurta iyo dadka waaweyn waa kuwa ugu faraha badan leh ee lagu dhaxarkayo suuqyadaasi lagu iibiyo dharka ee loo yaqaano bacadlayaasha. si kastoo ahaadaanba suuqyada magaalada Burco iyo diyaar garowga munaasabada ciiduba haddana waxaa hubaal ah in dadku ay si ballaaran uga cabanayaan walaac xoogan ay ka muujinayaan sarifka lacagta adag, taasoo ah xilligan ay marayso halkii ugu hooseysay. inkastoo suuqyada magaalada Burco ay camiran yihiin si habsameeyana ay u adeeganayaan bulshada noocyadeeda kala duwan uguna diyaar garoobayaan munaasabada ciidda, ayaa waxa kaliya culayska ku haya bulshada uu yahay qiimo dhaca ku yimid lacagta adag. mulkiilayaasha meheradaha bacadlayaasha loo yaqaano haysta iyagu xilligan oo kale faa'iidada ugu ballaaran heli jiray isla markaana iibiya dharka iyo kabaha ayaa waxa iyaguna walaac xoogan ka muujiyeen xilli aan kula kulanay meheradahooda. dhaqdhaqaaqa suuqu ay ku tilmaameen mid hoos u dhac ballaaran ka muuqdo iyaga oo ku sababeeyay hoos u dhaca ku yimi sarifka lacag. dhinaca kale ururka laanqeyrta bisha cas ee gobolka Togdheer ayaa maanta gaarsiisay ilaa 120 qoys oo danyara kaalmo ka kooban bustayaal, boco, weelasha biyaha, buskud, nafaqada carruurta ah iyo waliba saabuun iyo agab kale. dadkan danyarta ah ee la gaarsiiyay maanta deeqdan ayaa waxay ku dhaqan yihiin xaafadda Aadan Saleebaan oo inta badan ku dhaqan yihiin dadka barakacayaasha ah iyo kuwa danyarta ahi. gudoomiyaha ururka bisha cas ee gobolka Togdheer Cabdi Cawil ayaa waxa uu xusay in kaalmadani ay tahay mid loogu talagalay dadka barakacayaasha in lagu taageero noloshooda asaasiga ah, isla markaana ururkooda bisha cas uu had iyo goor caan ku yahay taakulaynta iyo daryeelka dadka tabaalaysan ee ku dhaqan guud ahaanba gobolada Somaliland. gudoomiyaha xaafadda Aadan Saleebaan ee magaalada Burco ah xaafadda ay ku dhaqan yihiin dadka danyarta ah Mukhtaar Axmed ayaa isna uga mahad celiyay ururkan bisha cas kaalmadan wax ku oolka ah maanta soo gaarsiisay dadkaasi barakacayaasha ah. ururkan bisha cas ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu hore ugu qaybiyay kaalmadan mid la mid ah goobo aad u tiro badan oo ay ku dhaqan yihiin dad danyar ah gaar ahaan xaafadaha Koosar, Cali Xuseen, 15 May, October iyo waliba goobo kale oo ku yaala magaalada Burco kuwaas oo guud ahaanba ay gaarsiiyeen ilaa 400 oo qoys kaalmo noocyo kala duwan ka kooban. Cabdisataar Sabri, TV-ga qaranka Burco. xafiiska samafalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu deeq gaarsiiyay isbitaalka magaalada Hargeysa xarunta agoomaha iyo goobo kala deeqdaas oo ay ugu tala galeen munaasabada Ciidul Adha. deeqdan oo ay sideeyay agaasimaha xarunta samafalka madaxtooyada Marwaamina Maxamuud Diiri ayaa waxa ku soo deeqday hay'adda wadaniga ee Fardows al-Khayriya ugu horeyna Siciid Cabdi Gaboobe oo madaxa mashaariicda xafiiska samafalka madaxtooyada ayuu halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay cid kasta oo iyadu soo gaarsiisay deeqdani xarunta agoomaha iyo isbitaalka kuwaasi oo ay ku dhaqan yihiin buuri dad jilicsan. cismaan oo gudoomiyaha hay'adda Fardows al-Khayriya ayaa isaguna sheegay in deeqdan xoolaha ay ugu tala galeen 30 neef isbitaalka dhimarka halka 30 neef oo kalena ay ugu tala galeen xarunta agoomaha iyadoo xoolo kalena ay gaarsiin doonaan oo ay ugu deeqi doonaan
deegaanada Faraweyne iyo Gabiley. agaasimaha xafiiska samafalka madaxtooyada Somaliland Marwa Aamina Maxamuud Diiriye ayaa Ilaahay uga bariday inuu ka abaal mariyo deeqdan cid kasta oo gacan ka geysatay sidii ay ugu farxi lahaayeen maalmaha ciida caruurta ku dhaqan xarunta agoomaha iyo dadka xanuunka dhimirka qaba ee ku dhaqan isbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa. waxaana ay xustay in loo baahan yahay in mar kasta laga warhayo caruurta agoomaha ah ee ku dhaqan xarunta agoomaha iyadoo mahadnaqday hay'adda wadaniga Firdaws al-Khayriya oo deeqdani soo gaarsiisay. dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu deeq xoolo ah ka guddoomay qaar ka mid ah muwaadiniin reer Somaliland oo ku dhaqan waddanka Canada. deeqdan oo ka koobnayd 15 neef oo adhiya ayaa waxa ku soo deeqay muwaadiniin reer Canada ah. ugu horreynna waxaana deeqdaasi guddoonkeedii ka hadlay Liibaan Aadan Cumar oo ka mid ah qurbo-joogta reer Canada reer Somaliland ee waddankaasi Canada. waxaan u sheegay in deeqdani ay ka soo ururiyeen jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddankaasi Canada. Marwa Khadiija oo iyadu u dhalatay waddankaasi Canada kana mid ah hooyooyinka reer Somaliland ayaa waxay sheegtay in 15 neef ay ugu talagaleen isbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa halka 10 neef oo kalena ay ugu talagaleen xarunta agoomaha Hargeysa. sidoo kalena ay u sideen xaruntaasi qalab isboorti iyo alaabo ay ugu talagaleen maalmaha ciida. Marwa Khadiija ayaa sheegtay inay tahay markii ugu horeysay ay aragto Somaliland isla markaasina ay aad ugu haweyn tahay intaasi ka badan ay soo gaarsiiso dadweynaha reer Somaliland ee jilicsan. agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa Marwa Faadumo Cabdi Kaahin iyo agaasimaha isbitaalka dhimirka Dr. Mustafa ayaa waxay labaduba uga mahadnaqeen deeqdaasi la soo gaarsiiyay. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu sheegay isaguna in deeqdani la soo gaarsiiyay goobihii ugu habboonaa oo ay ku nool yihiin dad jilicsan loona baahan yahay in laga ducaysto oo taakula ballaaran la gaarsiiyo. kadibna waxaa deeqdaasi mid la mid ah la guddoonsiiyay xarunta agoomaha Hargeysa halkaas oo ay ka guddoontay agaasimaha xarunta agoomaha. hay-adda Samsom Foundation iyo xafiiska samafalka madaxtooyada ayaa deeq xool ah oo tiradoodu dhan tahay 140 neef gaarsiiyay goobo kala gadisan oo ay ka mid yihiin cisbitaalka guud, cisbitaalka TB-da iyo xarunta jeelka dhexe ee magaalada Hargeysa. deeqdan xoolaha oo ay bixisay hay-adda Samsom Foundation oo dhan 5,000 oo neef oo ay ugu talagashay guud ahaanba dalka oo dhan. maareeyaha xafiiska samafalka madaxtooyada Marwa Aamina Maxamuud Diiriye oo hadallo ka jeedisay goobaha ay deeqdan gaarsiiyeen ayaa si weyn ugu mahadnaqday hay-adda Samsom Foundation oo ay ku tilmaamtay hay-ad markasta ka howlgasha arrimaha samafalka kana mid ah hay-adaha sida joogtada ah ugu xidhan xafiiska samafalka madaxtooyada. Marwa Aamina Maxamuud Diiriye waxay intaasi ku dartay in deeqdan xoolaha oo ka kooban 140 neef ay gaarsiiyeen goobahani kala duwan ay ugu talagaleen fadliga iyo ducada munaasabada ciida caraf awgeed. gudoomiyaha guud ee hay-adda Samsom Foundation Shucayb Cabdilaahi oo isaguna hadal ka jeediyay goobaha ay deeqdan gaarsiiyeen ayaa sheegay in deeqdan xoolaha ay qayb ka tahay 5,000 oo neef oo ay hay-adoodu ugu tala gashay munaasabada ciid al-carafada awgeed. mas-uuliyiinta kala gadisan ee goobaha deeqdan ay gaarsiiyeen ayaa iyaguna hadallo mahadnaqa ka jeediyay halkaasi. dhanka kalena Marwa Busaad oo ka mid jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan wadamada Khaliijka ayaa deeq dhar ah gaarsiisay cisbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa iyadoo xustay in deeqdan oo ay soo ururiyeen jaaliyadda reer Somaliland wadamada Khaliijka ay ugu tala galeen dadka xanuunsanaya ee ku xidhan cisbitaalka dhimirku sidii ay walaalahooga uga qayb qaadan lahaayeen munaasabada ciid al-carafada awgeed. Mustafa Xuseen Xasan oo ah agaasimaha cisbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa ayaa isaguna ka mahadnaqay deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan wadamada Khaliijku isagoo oo ku amaanay in markasta cisbitaalka dhimirka ay muhiim tahay in la soo gaarsiiyo deeqan noocan oo kala ah. jaaliyadda dalka Turkiga ku dhaqan wadanka Denmark ayaa deeq raashin oo ay ku soo hagaajiyeen jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan dalkaasi Denmark ayaa maanta waxa la soo gaarsiiyay xarunta agoomaha magaalada Gabiley iyo qaar ka mid ah dadka danyarta ku nool magaaladaasi Gabiley. mas'uuliyiinta xaruntaasi agoomaha ayaana kala wareegay jaaliyadaasi.
jahliyada dalka Turkiga ee ku dhaqan dalka Denmark ayaa deeq xoolo ah soo gaarsiisay xarunta agoomaha ee degmada Gabiley iyo qaar kamid ah dadka dayarta ee ku dhaqan degmadaasi. deeqdan xoolaha oo dhammayd 60 neef oo ari ah waxa 40 kamid ah loo qaybiyay dadka dayarta ee ku dhaqan magaalada Gabiley, halka 20 kalena la gaarsiiyay xarunta agoomaha ee degmada Gabiley, iyadoo horena jahliyada dalka Turkigu deeqdan deeq la mid ah ay hore u gaarsiisay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. wakiilka jahliyada dalka Turkiga ee Somaliland Siciid Xirsi Samaale oo hadal ka jeediyay munaasabadaasi ayaa sheegay in jahliyada dalka Turkigu ee ku dhaqan dalkaasi Denmark ay deeqdan ugu tala gashay inay agoomaha iyo danyarta Somaliland kaga qayb qaataan munaasabada Ciid al-Adha. waxaan u mahad celiyay jahliyada dalka Turkiga oo uu tilmaamay inay sanad kasta xilligan oo kale deeq xoolo ah soo gaarsiiyaan dalka Somaliland. gudoomiyaha xarunta agoomaha ee degmada Gabiley Marwo Safiya oo aadan Meecaad oo hadal ka jeedisay goobtaasi ayaa u mahad celisay jahliyada dalka Turkiga ee ku dhaqan dalka Denmark iyo muwaadin Maxamed Xirsi Samaale oo degan dalkaasi Denmark oo ah ninka suura geliyay in deeqdan xoolihii soo gaadho dalka. waxaanay ka codsatay jahliyada dalka Turkiga iyo dadka kale ee ku dhaqan wadamada dunida in ay xarunta agoomuhu tahay meesha ugu haboon in la caawiyo. waxaanay tilmaantay inay waqtigan xarunta agoomaha ee degmada Gabiley u baahan tahay in laga caawiyo tababarada caruurta, qalabka wax lagu baro caruurta iyo dhismayaasha xarunta agoomaha oo u baahan in la ballaariyo. gudoomiyaha degmada Qorilugad ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu xadhiga ka jaray xafiis shirkadda Telesom ay ka hirgelisay degmadaasi. wariyahayaga Yuusuf Ilkacsi ayaa waxa uu warbixintan nooga soo diray magaalada Burco. munaasabad ballaaran oo maanta xadhiga lagaga jaray xarun cusub oo dhinaca isgaarsiinta iyo waliba adeegga saad ayaa maanta lagu qabtay gudaha degmada Qorilugad oo kamid ah degmooyinka cusub ee gobolka Buhoodle. munaasabadan sida rasmiga looga furay xaruntan isgaarsiinta ee dhismaheedu socday muddo dhowr bilood ah ayaa waxaa ka qayb galay madaxda degmada Qorilugad, saraakiil sare oo ka socota shirkadda Telesom, madaxda ciidamada qaranka ee aagga Buhoodle iyo waliba boqolaal kamid ah dadweynaha degmada Qorilugad. duqa degmada Qorilugad Siciid Maxamuud Sheekh oo isagu si rasmi ah xadhiga uga jaray maanta dhismaha xaruntaasi ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in shirkaddan Telesom ay tahay buuri shirkadii ugu horeysay ee soo gaadha degmada Qorilugad, taasi oo baahi loo qabay inay ilaa iyo 50,000 oo qof oo kamid ah dadweynaha ku nool deegaanka degmada Buhoodle ay helaan buuri adeeg isgaarsiineed oo ku filan. waxaan u sheegay inay dhibaato kala kulmeen xilliyada ay jiraan hawlgallada dadweynaha iyo waliba dhinacyada kale xilli arrinta isgaarsiinta. waxa kale oo Xuseen ay ka dalbanayaan shirkadaha ganacsiga sida inay ka gacan siiyaan horumarka degmada, gaar ahaan dhinacyada nadaafadda, qorshaha lagu dhigayo ama lagu degayo degmada iyo waxyaabaha kale muhiim u ah adeegga degmada. sidoo kalena sarkaalka dhinaca suuqaynta iyo xiriirka dadweynaha u qaabilsan shirkadda Telesom Cali Maxamed Saalax Cajab oo isaguna maanta ka mid ah saraakiishii shirkadda Telesom ee ka qayb galay furitaankaasi ayaa waxa uu sheegay in shirkaddani ay muddo badan qorsheynaysay siday u dabooli lahayd baahida dhinaca isgaarsiinta ee ka taagan deegaanka degmada Qorilugad, isla markaana ay maanta u suura gashay inay fuliyaan adeegyada telefoonada gacanta, saadka iyo waliba adeegga aqoon maal. waxaanu sarkaalkan Xuseen ay dhamaystiri doonaan adeegyada kale ee shirkaddu ka bixisa gobolada Somaliland oo ay dadweynaha degmada Qorilugad ay adeegyadaas oo kale ay heli doonaan xilliyadan soo socda ee mustaqbalka. sidoo kalena maareeyaha shirkadda Telesom ee gobolka Togdheer Maxamuud Xaaji Ibrahim ayaa isaguna waxa uu furitaankaasi maanta ka sheegay inay furitaanka xafiiskan cusub ee degmada Qorilugad uu soo kordhin doono shaqooyin iyo horumar dhinaca bulshada oo lagu kordhin doono deegaanka degmada Qorilugad. maareeyahana shirkadda Telesom ee gobolka Togdheer ayaa waxa kale oo Xuseen dhismaha xaruntaasi ay ka dambeysay codsi ka yimid dadweynaha degmada Qorilugad, taasi oo keentay in baahida isgaarsiineed ee ka taagan deegaankaasi laga qayb qaato. isla markaana waxa uu shirkad ahaan uu sheegay inay tixgeliyaan baahida deegaanka ee ballaaran, balse aanay ahayn buuri sad yar oo dhayirsan karo oo xilligan soo korsay, inkastoo uu daboolka ka qaaday inaanay dheeftoodu ahayn buuri mid wada raalin gelinaysa bulshada oo dhan. geesta kalena furitaanka xaruntan isgaarsiinta ee shirkadda Telesom ay ka furtay degmada Qorilugad xafladeedii kadib waxaa iyadana goobtii laga dhisay ama laga furay xaruntaasi lagu qabtay barnaamij xiisa lagu helayay ilaa iyo tiro telefoonada gacanta, kuwaasi oo barnaamij bakhtiyaa nasiiba ay ku soo bandhigtay shirkadda halkaasi. waxaana barnaamijkaasi oo ah mid uu si weyn u soo jirtay ay dhagaha iyo indhaha dadweynaha ka qayb galay munaasabadaasi ku guuleystay ilaa iyo 10 qof oo mobilada gacanta. xaruntan isgaarsiinta ee shirkadda Telesom ee maanta laga
hirgeliya degmada qorolugud ayaa waxay noqon doontaa shirkadii ugu horeysay ee dhismaheeda ka bilowda degmadaasi. yuusuf ibraahim warsame, tifiga qaranka, burco. aqoon-yahan cabdirashiid cabdilaahi sahal oo ka mid ah aqoon-yahanada reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Kenya ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya waxa uu kaga hadlay arrimaha nabadgelyada isagoo sidoo kale baaq u diray dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag. wariyahayaga Cabdilaahi Cabdi Cali ayaa warbixinta waxa uu naga soo diray magaalada Nairobi. wax maanta shir jaraa'id oo ku wajahan baaq nabadeed oo uu dirayay beelaha dawladaagta ah ee ay colaadu ku dhex martay gobolka Ceergaabe ku qabtay xafiiskiisa aqoon-yahan Cabdirashiid Cabdilaahi Sahal ubada isagoo aqoon-yahanku ugu baaqay beelaha walaalaha dawladaagta ahi in aanay hilmaamin aafada colaadu iyo dagaaladu ay leeyihiin oo la rabo in waqtigan arintaasi laga waayo arko horena looga maro wax kasta oo jirana lagu soo dabaalo nabad isafgarad iyo wada hadal isagoo uu ku nuxnuxsaday aqoon-yahanku danta ballaadhan ee dhex taala labada beelood inaanay hilmaamin waxa hadalkiisii ka mid ahaa. waxaan jeclahay inaan halkan maanta aan diro baaq nabadeed oo ku aadan shaqaaqooyin muddooyinkii dambe ku soo noqnoqonayay magaalada Ceergaabo kuwaas oo ku salaysnaa aana qabiil iyo wax la mid ah. marka ugu horeysa waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay shifo degdeg ha siiyo. waxaan leeyahay dad iyo howdad ehelabaatihiin reer Sanaag waanuna ka xunnahay labada dhinacba waa gacantaydii midig iyo tii bidixba. waxaanu leenahay nabda xaajadiina wada xaajooda oo dhammaystirta sida ugu wanaagsan u dhammaystirta oo saad ku xaali jirteen ku xaala. waxaan leenahay arrimuhu sidaa inay noqdaan weeye dagaal xiisa uma qabtaan. shalay bay ahayd markii aad qaybtiinna buuraha u qaxday qaybtiinna bannaanka oo idinkoo wada dhaawacan aad isu timaadeen oo aad heshiiseen. cabdilaahi cabdi cali, tifiga qaranka Somaliland, Nairobi. halka warkaasi ay idin kala socotaana waa telefishinka qaranka ee Soomaaliland stuudiyiisa magaalada Hargeysa. xukuumadda wadanka Greek ayaa waxay heshay codkii kalsooniga ee baarlamaanka wadankaasi iyadoo ra'iisul wasaare Bambadiyaarana waqtigan uu diyaar garoobayo inuu soo dhiso xukuumad wadaaga si looga diyaar garoobo guntigana looga geejisto dhaqaale daradii ka dhacday wadankaasi Greek ee meel aad gaarsiisay iyadoo wadamada Yurubna arintaasi kulamo door ah ay ka yeesheen. xukuumadda waddanka Greega oo uu hogaamiyay ra'iisul wasaare George Bambandiero ayaa ka badbaaday in ay dhacdo kadib markii ay ku guuldareysatay in ay hesho codka kalsoonida ee baarlamaanka waddanka Greega. xukuumadda Bambandiero ayaa heshay codad gaaraya 153 cod halka 145 kalena ay ka diideen. haatan ra'iisul wasaare Bambandiero waxa uu ka samata baxay in ay dhacdo xukuumaddiisu laguna dhawaaqo doorasho xilligeedii ka soo hormarta. waddanka Greega waxa haysata dhibaato weyn oo ka dhalatay lacagta deymaha ee dalkaasi lagu baritaaro dhaqaalihiisa. taasina waxa ay khalkhal iyo fawdo ku abuurtay dhammaanba dalalka ku jira xayndaabka la yidhaahdo suuqa Yurub amaba Yuurada. warkii oo aynu kala socoteen telefishinka qaranka ee Soomaaliland waa naga intaasi. haddii alla yiraahdo warka xigeentaan isugu iman doona meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.